xafladan oo ka dhacday mid ka mid ah goobaha ugu waaweyn magaalada Columbus ayaa waxa ka soo qayb galay boqolaal muslimiin ah oo Soomaali u badan kuwaas oo ka kala yimid gobolada dalka Mareykanka. Munaasabadan oo lagu weyneenayo dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa haatee ayaa waxa muxaadarooyin ku aadan taariikhda suubanaha ka soo jeediyay culimo caan ka ah muslimiinta Mareykanka kuwaas oo ka kala yimid meelo kala duwan si ay dadka u gaarsiiyaan taariikhda iyo halganka diiniga ee islaamku soo maray. Soomaalida Columbus Ohio intooda badan goobjoog ka ahaa ayaa la arkayay iyagoo si weyn u soo camiray goobta horena u soo watay caruurahooda oo ay si aad ugu soo labiseen kana muuqanaysay astaanta islaamka. inkastoo culimada diin aad u badan ay ka hadleen xafladan waxa kamid ahaa culimadii ka hadashay Sheekh Maxamuud Guraceel oo ka yimid dalka Sweden, Sheekh Saalax Macallin Cabdullaahi iyo Sheekh Yuusuf Maxamed Cabdi oo ka kala yimid gobolada Kentucky iyo Missouri ee dalkan Mareykanka. Dr. Maxamed Tarazi iyo Sheekh Germany oo ayaguna kamid ah culimada ahlu sunna wal jamaa ee dalkan. waxaa soo jiitay dareenka iyo indhaha dadka munaasabadan ka qayb galayay Axmed Burhaan oo loo yaqaan Axmed Cadaan oo ah wiil yar oo u dhashay dalka Mareykanka xilli dhowna qaatay diinta islaamka isla markaana luqadda Soomaaliga ku akhrinayay qayb ka mid ah taariikhda nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa haatee. xafladda iyo qaabka u dhacday oo aanu idin soo koobnayna waxa u dhacaysaa sida tan. إخوة الأعزاء الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحنما أدعلنا يا إلهي سبحانه وتعالى إلهي إيمانك نسيه إسلام ماذا نوضر فيه هذا نبينا كدغ نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركز النبوة إنه نغني خير الأمم ومضى إلهي سبحانه وتعالى kuwa ugu khayrka badan ayaynu noqonay nabigeena kaleey salaatu wasalaam sababtiisa aynu ku noqonay. marka ahbaabi billah waxa weeye bishaara inoo sugnaatay mar hadii nabigeenu uu yahay nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam. ahbaabi fillah maantay waa maalin aad iyo aad noogu weyn xaqiiqatan waa maalin aynu u ihtifaalayno nabigeena muhammad kaleey salaatu wasalaam ومالنا إنه موجنا حبيبك تعالكيس عليه الصلاة والسلام ومالن إله سبحانه وتعالى رحمتي ونصدري أين إلهي وشكرنا سبحانه وتعالى مركا قفك الصونة قمضة شكري أياك واجبي لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أيا إلهي نوضرتي مركاسا وحين كنا قلنا خير الأمم إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا سيدا aynu isugu nimid jacaylkiisa qalbigeena ilaahay inuu ugu nooleeyo. waxaan isugu nimid mawlidka nabiga kaleey salaatu wasalaam mawlidkuna hadda budaan fadhinay meeshaan saacado kalena waa sii fadhin doonaa markaad fiirisid marka waxaan isugu nimid ama meesha ku hayno waa nabi Muhammad kaleey salaatu wasalaam oo laga qisaynayo inta hadda noo dhiban culimadu sheegi doonaan intaas ay noqonaysaa nabiga qiso ku saabsan ama daatadiisa ku saabsanaato hab abuurkiisii ama hab dhaqankii nabiga kaleey salaatu wasalaam ama siiradiisii iyo taariikh nololeedkiisii xilligu dhashay ciduu nuugay iyo hijradiisii iyo wax uu nabiga ku saabsan ama asxaabtiisii ama aalkii nabiga kaleey salaatu wasalaam wax uu nabiga u wada noqonaya oo qiso nabiga uu ku saabsan khusaysa weeyaan wax meesha la isugu yimid. wuxuu yiri ilaahi subhanahu wa ta'ala nahnu naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. wuxuu yiri nabi Muhammad kaleey salaatu wasalaam وكل نقص عليك من أنباء الرسل مركي إلهي كسو شيكيي أنبياء دورا وكسو حضلي أيو النبي وحكير وكل نقص عليك من أنباء الرسل ضمان وحانو كاغا قصينينا رسوشي أخباره دي وحبانو كاغا قصونينا أنو كد جينينا قلبي كاغا ويري إلهي سبحانه وتعالى ما نثبت به فؤادك
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وحانا كو يمد بو يري قصصاس اما قصصكاس دخوده waxa kugu imanaya oo kugu yimid xaq iyo wacdi iyo waano dadka muuminiinta u sugnaatay waxa ka garanayna ayadaas markaan fiirino waxaanu meeshaan sugu nimid dad muslimiin ah dadka muslimiinta markay isku yimaadaanna waxa ay sameynayaan in lagu miisaamo shariicada islaamka weeye shariicada marka waxaanu ka ogaanay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ambiyadii walaalihiis ah iyo rasushii oo uu asagu ka fadli badnaa ayaa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala qisada aanu kaaga qisaynayno ayaa qalbigaaga lagu dejinayaa haddaa maqashid tathbiit haddaa maqashidna waa kelimatu tawxiid iyo iimaankoo loo siyaadiya qofka weeye nebigu qalbigiisa wax qaflo ah iyo wax nuqsaana midna ma lahayn laakiin mar haddiiba ilaahay uu yidhi camalku maadaamaan aaminsannaha iimaanku mar walba inuu sii kordhayo oo qof walba kamaalu sii siyaadinayo waxa uu nebiga ku yidhi hadduu ilaahay yidhi iimaan baanu kugu kordhinaynaa qalbigaaga ka warrama nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam haddaannu meeshaan isugu nimid maantay qisooyinka ku saabsan asaga keliya in laga sheekaynayo salluu cala alxabiib taasi waxa weeyaan qodob ka ugu muhiimsan ee halkaan aan isugu nimid waxaa kaloo jiray oo hadda mar dhoweyd naloo qaadaya qasaa'id fara badan haddana ay noo qaadi doonaan ragga hadda halkaa fadhiya culummada qaybo ka mid ah ayaa noo madiixaya oo nebiga ammaanaya calayhi salaatu wasalaam ayaduna ammaanta waxay ahayd waxay kaga dayanayaan asxaabtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay waxaa meesha annagu ugu weynoo lagu hayaa waxa weeyaan in nebiga laga qiseeyo markii nebiga laga qiseeyo oo qofkii uu aad u jeclaysto wanaaggii iyo sifaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu qofka qalbigiisu aad u jidboodo oo uu jeclaysto inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu markaas ammaano waana sida asxaabtu yeeli jireen wax ziyaadaa ma jiraan waxaa ku soo arooray saxiixu albukhaari abu hurayra radia allahu tacaala canhu raawiga xadiidka warinaya wuxuu leeyahay samictu abaa hurayrata radia allahu tacaala canhu wahuwa yaqusu fii qasasihi wahuwa yadkuru rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam waxaan maqlay buu yidhi abu hurayra oo qisaynaya oo nebi maxamed ka qisaynaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo hadal qaaday oo uu ka sheekeeyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu ka sheekeeyey buu aad buu wuxuu uga helay tilmaamihii nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi intuu dadkii ku soo jeestay inna akhan lakum laa yaquulu rafath buu yidhi walla walaal aad leedihiin inuusan wax cayaaro ku hadlinin buu yidhi muxuu ka wadaa cabdullaahi ibnu rawaax ula jeedaa markaasuu baydad nebiga uu ku ammaanay ayuu halkaa ka tiriyey abu hurayrana markuu nebiga ka qiseeyey calayhi salaatu wasalaam oo uu ka helay sifaadkiisii oo wanaagsanaa ayuu qasiidadii ku soo celiyoo qaaday inta annagu aan samaynayna waa intaas haddii dabeecada wanaagsan ha laga hadlo la yidhaahdo nebi moxamed baa miihaal loogu soo qaata calayhi salaatu wasalaam ilaahay marka acmaasha mu'miniinta miisaanka la saaro oo qof walba camalkiisa la miisaamayo waxa ugu miisaan weyn miisaan waad fahmaysaan waa xusnul khuluq wa taqwa allah sida nabigu uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa inaan ilaahayna khalqay ka baqno dabeecadeenna iyo akhlaaqdeennana aan hagaajinno ilaahay ha noo hagaajiye waxaa kaleeto oo nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam nala ka doonayaa mar walboo magaciisa aan maqalno nabigeenna inaan ku sallinno sala allahu calayhi wasalam haddii nabigeenna aan ku sallinno calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa noo naxariisanaya 10 mar baa ugu yar ilaahay intuu kuu naxariisanayo hal mar markaad nabiga ku sallido sala allahu calayhi wasalam nabi muxamed akhlaaqdiisa in badan bay culummadu naga dhejiyeen akhlaaqda nabi muxamed iyo dabeecadiisu waxay ku dhisneed qur-aanka kariimka
dhinac walboo laga fiiriyo nabi muxamed jaamaca qur-aanka aayadaha qur-aanka haddaad akhriso aayad walba waxay ku farayso nabigeennu wuxuu ahaa mid ku camal fala oo ku dhaqma oo asaga miisaal loogu soo qaadan karo. waxaa la weydiiyey ummuna caaisha radiyallahu canha waa zawjadii rasuulka sallallahu calayhi wasallam. asxaabta nabiga marka la tiinayo toddobada la yiraahdo waa ugu aqoon badnaayeen ugu fiqhi badnaayeen bay ku jirtaa. ilaahay raadiha ka noqdo. nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam bay nasiib u heshay in ay noqoto markii ugu dambaysay oo naftu ka baxaysay asagoo ku sintaaca halkaa dhuunteeda iyo xabadkeeda u dhaxayda baa naftu uga baxday calayhi salaatu wasalaam. 10 darajo oo 10koodaba caaisha ay dhihi jirtay calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa fadli dheeri igu siiyey bay ka mid ahayd nabi muxamed baa lagu oofsaday aniga halkayga korkayga asagoo ku sintaacsan baa naftu ka baxda nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam. waxaan nabiga uga dayanaynaa marka cafiga ka mid calayhi salaatu wasalaam. nabi muxamed wuxuu iska cafinayay dadkii dhibka u geystay oo dhan buu iska cafinayay calayhi salaatu wasalaam. waxa miisaalada xataa gaaladii oo kale markii miisaal loo soo qaato waxa ka mid ah tusaale ahaan labada miisaal ugu waaweyn qisada la yiraahdo qisadii daa'if iyo nabigu markuu ka galay ka mid ah maalan iyo uxud oo kaleeto. nabigeena calayhi salaatu wasalaam dagaalkii uxud waxaad ogsoontihiin waa duulaamadii waaweynaa oo nabigu uu galay kii labaad baa lagu tilmaamaa. waa duulaankii lagu diray 70 saxaabi oo ka mid yahay muscab ibn umayr safiirkii ugu horeeyo faafinta diinta loo diro iyo dacwada ayuu ahay baa leeyahay madiina nabigu diray calayhi salaatu wasalaam. waa dagaalkii lagu dilay nabiga adeerkii sayid xamza asadullah wa asad rasuulillah saxaabiga la yiraahdo sayid xamza lagu dilay oo halka ku shahiidoobay 70 saxaabi baa lagu dilay baa la yiraahdaa. nabi muxamed baa lagu dhaawacay calayhi salaatu wasalaam oo rubaaciyadiisa lagu jabiyay. nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu daqray oo dhibkaas uu soo gaaray sallallahu calayhi wasallam. markii dhiiga laga daadiyo wajigiisii iyo jirkiisii dhiig baa ka daatay nabiga sallallahu calayhi wasallam. intaasoo dhibad duulaankii nabiga loogu geystay markii nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam ay intaasoo dhiba u geysteen gaaladu nabigeena calayhi salaatu wasalaam hadda waxa weeye hadduu ilaahay weydiisto kulligood inuu dhammeeyo ilaahay waa dhammaynaya. laakiin nabigu wuxuu rajo ka qabaa kuwa iyagu ay dhali doonaan in ilaahay wax khayr la u ka keeno calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka mid ah gaaladii nabi muxamed sidaa u dhibaataynaysay markii nabigu uu maka la furtay oo nabigu maka uu soo galay kuwii waxa weeye intaasoo dhiba nabiga u geystay oo magaalada nabiga waxa weeye inuu ka haajiro ku kalifay magaaladii Makka al-Mukarrama. nabi muxamed muxuu ku yiri maanta waxba laydin ma haysto idhabu fa antum dulaqa. nabigu waa iska cafiyay calayhi salaatu wasalaam. markii rasuulkeena ay ka geeriyootay zawjadiisii khadiija radiyallahu anha adeerkii difaaci jiray alla dhihi jiray abu daalib markuu geeriyooday sanadka loogu magac daro caamul xusni la yiraahdo sanadkii murugada waa sanadkii 10aad ee bicada nabiga calayhi salaatu wasalaam. yacni markii rasuulku 10 sano oo rasuul ahaa umrigiisuna 50 sano oo marayo baa waxaa geeriyooday adeerkiis abu daalib baa geeriyooday. waxaa geeriyootay zawjadiisii khadiija radiyallahu anha oo ilmaha nabi muxamed oo dhan ilmaha dhan nabiga u dhashay ilaa ibraahim maahan inta kale oo dhan ayaa geeriyootay oo ahayd gabadhii ugu horeydo nabi muxamed guursado sallallahu calayhi wasallam oo ahayd gabadha lagu tilmaamo qofkii ugu horeeyay ee nabi muxamed rumeeyay calayhi salaatu wasalaam ala al-idlaaq kulli marka la isku daro qof soo muslimay qofka ugu horeeyay ee nabi muxamed rumeeyay calayhi salaatu wasalaam khadiija lagu tilmaamaa radiyallahu anha. khadiija oo nabigu mar walba ka hadli jiray fadliga iyo qiimaha ay leedahay
xataa caaishoon la kulmin baa ka masayrtay baa la yidhaahdaa maxaa yeele nabigu mar walba wanaageedii iyo fadligeedii buu tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam khadiija ilaahay raadi ha ka noqdo sanadkaas iyaduna geeriyootay nabigu aad u murugooday sallallahu alayhi wasallam waxa sanada loogu magac daray caamul xusni sanadii murugada ayaa loogu magac daray markii arintaas dhacday nabigu wuxuu aaday wadanka leeyahay daa'if hadda waxay ka xisaaban tahay wadanka sacuudiga kamid tahay ba hadda la yiraahdaa xisaab ahaan wadankaas oo nabigu aaday sallallahu alayhi wasallam ujeedada uu aadayana waxa weeye diintu waxay u baahan tahay mar walba ahbaabi garab bay u baahan tahay in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. First of all, I'd like to say, as Ma'al Mahad said, I'm going to be translating into English, so those of you who won't understand Somali, especially the youth, be prepared to listen and, keep your ears open. Horta waxaan jeclahay inaan ka hadlo taariikhdii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo kooban. Horta Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku dhashay Makka. Nabiga sallallahu alayhi wasallam aabihii wuxuu dhintay asaga caloosha hooyadii ku jiro. Waxaa barbaaray hooyadiis. Waxaa nuujisay Thuwaybatul Aslamiyya, haddana Halimatul Sa'diyya. Markuu jiray 6 sano waxaa dhimatay nabiga hooyadiis. waxaan ka falaa qaaday awoogiis Abdul Muttalib 8 sano markuu gaaray haddana waxaa dhintay awoogi nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku barbaaray Makka yaraantiisii wuxuu raaci jiray ari markuu gaaray 25 wuxuu guursaday Sayyidatu Khadiija ayadana waxay jirtay 40 sano markuu gaaray 35 wuxuu ka qayb galay dhismihii Kacbada wuxuu aan ku noqday sifooyinka wanaagsan sida runta amaanka sabarka dulqaadka iyo xishoodka markuu gaaray 40 sano wuxuu Allah u doortay inuu noqdo rasuulkii ugu dambeeyay una ugu jeclaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dadka Makka ku nool tawxiidka uga yeerahayay 13 sano wuxuu u hijrooday Madiina ayadana wuxuu ku noolaa 10 sano oo diinka islaamka faafanayay وأبو تي حبيب كان نجا محمد صلى الله عليه وسلم أمانة ربي كان أمده وأسيحي مركي دأديس أحد لحدا يسدح سنة إلهي آية أفسدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحود لي تضوع عرور سدح ويل يأفر قبضود سدح ذويل وحيك لا أهين قاسم عبد الله إبراهيم قبضحنا وحي كلا أهين زينب رقية أم كلثوم يا فاطمة وحنا كدنتي سقال حاس عائشة حفصة سودة صفية ميمونة رملة هند زينب يو جويرية حبيبك نجا محمد صلى الله عليه وسلم وحوها هدنا يحي مد جعل أمديسا وحي واجب نجوا إن جعلنا حبيبك نجا محمد صلى الله عليه وسلم أنا رعنا وديسي سيء نجو شفيع مالنت آخر وأنا مد نقنا جميع عريسة إلهيو نجو أوصى جعلك رسولك آمين آمين محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد الله أحمد اسم كيس أي آمنا إيجاركد أبايد فاضموي أذكتوي أذوجد إمامك جبريل أبو بكر صديق إخوان كود انتي الشهادة نيس دمان إمام كود أحمد نورو أذو كلام بلأو من محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليه وسلم الله تربت مركي لا له تاركو يرو
waxaad tacabtiyo waxaan taran soo tabcayse togaaga kii ka soo go'ayan taqiirmin iyo tolka tanama ku taraayaan tamaam nuurow adan talo ka rabnaaye jidda dhici doona aakhira loo jarmaado jidko janno waaye jidkoona jaxiima waaye jamaal nuurow jidkii janno noo jixe عليك وسلم المولى محمد صل على الحبيب صل على الحبيب صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. In one of the great gathering, Rasulullah ﷺ was sitting with a lot of people around him. To his right was a small boy, and to his left it was Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar. So somebody offered him a pitcher, something to drink, milk or water. So Rasulullah ﷺ drank some of it, and he turned to this boy and he asked him, "Do I have your permission to pass the water to Abu Bakr and Umar?" This is out of respect to both, to Abu Bakr and Umar on one hand, and also to the boy, because in Islam we know that we do things from the right, we pass from the right. Abu Bakr and Uthman happened to be sitting to the left of the Prophet ﷺ. So can you imagine Rasulullah is asking a permission from a small boy? He asked him, "Can I pass the picture to Abu Bakr and Umar?" The boy said, "No way." He refused. He refused. Why? Possibly he wanted to have the honor to have the picture handed to him from Rasulullah ﷺ, which is great. Or maybe he thought he's a small boy, he thought maybe by the time the picture gets around, he probably nothing will be left for him. So in either way, he was, the moral of this story is that how Rasulullah ﷺ respected even children. Respected them, and he is our role model, and we need to do the same. We need to respect our children the same way as Rasulullah ﷺ has respected his the children at that time. During his life, there was a woman who used to clean the mosque. She was from people who were not considered important in Medina's traditional clan society. She wasn't important. One time he noticed she was not at the mosque. When he inquired about her, he was told that she has passed away. So he was really sad because nobody told him. So what he did, he asked where she was buried, and he gathered his companions and offered the funeral prayer for her. SubhanAllah, he offered the funeral prayer for her. Just shows how well he respected people, no matter their social status in the general community. He was so nice to his wife, and it was narrated that he never laid his hand on any of his wives, meaning he never hit any of his wives. And that's what a lesson for us men. Don't ever beat your wife. Don't ever put your hand on your wife. Our Rasulullah is our role model, and that's what we need to do. There was a brother, he came with his wife for some counseling, and he called her Haywana. Haywana, maybe the same thing in Somalia, means anybody. Haywana. I asked him, "Why did you hit her?"
He told me because she told me, you are Haywan. I said, that's fine, but how does that happen? He said, I told her Haywana. She said, no, you are Haywan. I said, wait a minute, subhanAllah, you are insulting her. You wanted her to say, Jazakallah khair, you called me Haywan, that's fine, I accepted that. So he beat her because she called him back the same word he told her. Unfortunately, I gave him a lot of warning. Unfortunately, a few weeks after that, he was arrested because he again did it and he beat his wife. The neighbors heard the screaming, called the police, and he was escorted out of his house. So we have to listen and to what the Prophet ﷺ has told us. We have to use him as our role models. That's how we can create a very great يا نور الإله العلي يا خير الورى يا ولي اليرى لمن قد ولي ما وليت لا والسماء أنت سابق خفض أنت قاسم قوسد أنت نائب وسط بيننا وبينك اللحام يا رسول الله المدى يا حبيب الله المدى يا سيد الإله المدى يا ابن عبد الله أنت رحمة منزلت في أم القرى أرسلت للورى بها أجدت في القرآن مثل الرعد إن تسمع مطاحتنا أو تعين ساحتنا أروي للإيمان قالنا من سواه ساحل رعا يا رسول الله المدى يا حبيب الله المدى يا سيد الإله المدى يا ابن عبد الله من كل الذي مدخل لله لا تعدم من ذاك الملات فلا كل أحمد ملتحن أحمد وآله ماما يوسف شكا ملما يستريد كي أكرم من رسول الله المدى يا رسول الله المدى يا حبيب الله المدى يا سيد الإله المدى يا ابن عبد الله أجمل الورى مطلقه أحسن امرئ خلقه والرب الذي خلق إنه لن يعمل وله إن دور الأخير قد خلق للإله لا تعدله من ذاك الملاك فالله دون أحمد التحقا culummadii hadashay iyo kuwa hadli doonaba haddii aan ku wareegno oon soconno xawla siiratihi sala allahu calayhi wasalam qayb ka mida unbaan tabarugaynaa oon soo qaadanaynaa mooyaane ma gaari karayno rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa nuur ilaahay soo diray subxaanahu wa tacaala nuur ilaahay soo diray buu ahaa nabigu sala allahu calayhi wasalam maxaa ilaahay u soo diray nuurka koomka mugdiga ku jiray in ilaahay uu ka saaro dulumaadkii iyo mugdigii shirkiga iyo macaasida inay koonku ka baxaan oo dadka koonka ku noolu ay ka baxaan oo ilaa nuuri aliimaani walmacrifa ay u baxaan saasaa ilaahay u soo diray subxaanahu wa tacaala nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhashay sanadka caamulfiil la yidhaahdo cinda alcarab loo yaqaano markay taariikhdu ahayd 571 markay ka soo wareegtay miilaadiyada waa dhalashadii nabiyullaahi ciise sala allahu calayhi wasalam ayuu nabigeennu dhashay sala allahu calayhi wasalam maka ayuu ku dhashay habeenkii uu dhashay nuur ayaa baxay oo maka ka iftiimay nuurkaas oo iftiimiyey oo laga arkay sarihii ku yaallay shaam ku yaallay sarihii shaam ku yaallay Syria iyo Lubnaan iyo Falastiin iyo shaam oo dhan sarihii ku yaallay ayaa habeenkaa la arkay
calaamad waxay u tahay taas in ilaahay koonka u soo diray nuur u soo diray gaari doono koonka oo dhan gaari doono 40 sano markuu gaaray nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu dhashay asagoo caloosha ku jira ayuu aabihii dhintay hooyadii asagoo 6 sano jira ayay dhimatay awowgii cabdimudalib asagoo 8 sano jira ayuu dhintay bacdigeedna nabigu wuxuu la noolaa nabiga adeerkii abi taalib ninkii la oran jiray laakiin waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tusinayaa makhluuqa tusinayaa rasuulku inuusan u baahnayn cid ilaahay ka soo hartay oo tarbiyaysa ama wax u qabato وأقول النبي لي عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبي هو يدي مالبان نوجسي ثويبة الأسلمية قبل اللي إرادها هدنا نوجسي حليمة السعدية أيار رضا عيسى انت بدنيت كل بانتي نبي عليه الصلاة والسلام أفرتن سنة مركو قاري إلهي الرسول بوكادغي صدح يا 20 سنة أيو وحي قدغي لحدا لي صدح سنة أيو نبي بوكادغي صلى الله عليه وسلم وحير هدي أن كسو قاضو لبدا موضوع شيخ كشن قريه تعظيم كالنبي صلى الله عليه وسلم يا محبديس تعظيمك يا فضائش واسكو معنى قفك إلهي وفضلي ومخلوق ودنو كفضلي وويني قفك إلهي وويني نفضل قدم المجرى قرآنك إلهي وحنا وشيء إن بدن إلهي وحنا وسع العلنية نبي قدر كو إلهي أكفيس كله صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى وحليه والنبي أن كله صلى الله عليه وسلم نعمة أوسيي ومخلوق ودن أين هلين أسبه أشيغي وكم من يسني ورفعنا لك ذكرك ذكرك أجيبان كرو قادني هدي أنيق الله يحسه والله يحسه يا إلهي سبحانه قرن الله اسمه باسمه إلهي مقعيس لحريري نبي عليه الصلاة والسلام أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ويطيعون الله والرسول فردوه إلى الله والرسول فإن لله خمسه وللرسول ألم يعلموا أنه من يحادد الله والرسول ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إن الذين يؤذون الله والرسول قرن الله اسمه باسمه أقسم الله بحياته إلهي نولشي سوكو دارتي لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لخالق عمرك أيان كدارتي إنهم لفي سكرتهم يعمهون عبد الله بن عباس وحليه ترجمان القرآن إمام المفسرين ما خلق الله وما برأ وما ذرأ أحدا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره إلهي ما أبور أحد نبي محمد كفل بذا مما قال أنه ليه إلهي أصوى كدارنا يقفنا لشيسا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاوحي كتوسينيسا تعظيمك يقدرك وإلهي أكتيس كجوغ النبي صلى الله عليه وسلم شوقا وبدايبة غرفة عشقا فهديت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم اللهم لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا بما تعلمنا وزدنا من فضلك علما وتعليما إنك على كل شيء قدير الحمد لله والشكر لله Alhamdulillah, it is a tremendous blessing to be in this, inshallah ta'ala, Mubarak gathering, this majlis to commemorate of the most tremendous blessings that we've received, that humanity, that creation has ever received, the blessing from Allah subhanahu wa ta'ala of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And when we look at how Allah subhanahu wa ta'ala describes the people who are successful, the people who succeed, the muflihun, Allah says in the Quran, He describes the relationship to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, He says in Surah Al-A'raf, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. He says those that believe in Him, venerate Him, support Him, and follow the light that was sent down with Him, they are those who succeed. So Allah subhanahu wa ta'ala has blessed our hearts with belief in the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We ask Allah to increase that belief and make that belief firm so that we can be of these muflihun that Allah describes in the Quran. And we find that when Allah subhanahu wa ta'ala, when He loves one of His slaves, He places in that slave's heart a veneration for him, right? That person holds up high, to a high respect, to a in high esteem, the things that Allah loves, and has taqwa of Allah, and has khashatillah. The person that Allah loves has these things in his heart, and also Allah puts in that slave's heart of the person that he loves, puts in a veneration of the people that Allah loves, a veneration of the awliya, a veneration of the anbiya, of the fuqaha, of the people that Allah loves, and He puts in a veneration of the things that Allah loves, the attachment to the masjid, etc., etc. So the things that Allah loves, He puts into the heart a veneration and a real respect for it. And we find that the people, conversely, the things that are not worthy of our respect, are not worthy of veneration, are not worthy of giving. Allah does not put an attachment in the hearts of the people He loves to the things in this dunya that are transient, that come and go and are not important. The hearts of the people that Allah loves are not attached. intaanan nuqdada aanan u socda aanan gaarin waxaan rabnaa oo culummadii iga horreysay oo dhan ay taabanayeen maqlayseen oo ku celceliyeen in de xafladda nabiga calayhi salaatu wasalaam mawlidka shay wanaagsan ay tahay looga hadlayo nabiga calayhi salaatu wasalaam siiradiisii iyo habdhaqankiisii looga hadlahayo marka xaasilka markii aan isku keeno waxa weeye intii hadda culimmadu noo sheegaysay dee meeshan waxa lagu hayo waa siiradii nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii dee culimmaha ay arkaysiin oo hadalkii noo soo dhammeeyey qof wax munkara ka hadlaya miyaa jira qof wax aan wanaagsanayn ku tilmaamaya nabiga miyaa jira calayhi salaatu wasalaam iyo amdaaxdaas nabi ammaankaayoo wanaagsan waxa saddexaad oo soo weheli kara waa tasaduqa dadkaas mu'miniinta ayoo wanaagsan oo muxibiinta ay la baxeen saddexdaa shay marka midna la isweydiin mahayo waa waxay dee culimmadu ay noo sheegayeen
idan marka dadkan aad dhibaatada badan ay uga taagan tahay oo mashaakilka badan uga haysata mawliidka oo qaarkood aad moodid aad inay xaraj iyo dhibaato iyo ay ugu hayso maxay dacninhayaan ilaa qofna iskama indha tiri karo dee siiradii nabiga calayhi salaatu wasalaam ambiyadii ka horreyso dhan baa ilaahay qur-aankii uga hadlay nebigii baa ambiyadii siiradoodii ka hadlahayay kutubtiiba mastuur ku tahay sadaqada inta qur-aan ku soo aroortay hadda ka hor baan qolooyin iswaraysanay waxay yidhaahdeen annaku waxaan ma diidanin laakiin meesha aan diidannahay waxa weeye waa mawcidkan iyo bishaan iyo sanadkan maalin kasta lala fiirsanayo horta sida aad ogtihiin maalin lalama fiirsano hadda sanadkii hore iyo sanadkan ma isku maalin baa la dhigay mawliidka xataa bisha rabiic awal markii la fiiriyo magaaladan la joogo maya oo maalin mucayan oo gooniya lalama fiirsado haddii xataa ay dhacdo maalinba in lala fiirsado kaba soo qaad ama maalin 8 ha noqdo ama maalin 10 ha noqdo ama maalin 12 ha noqdo haddii maalin lala fiirsado sideedaba zamanku ma waxbuu xarimaa aan isweydiin haddaan muslimna zamanku annaku ma waxbuu naga xarimaa ilaa waxa uu xarimay waa ilaahay iyo rasuulkiisa bal waxay axaadiistii cadaynayaan xilliyaalkii ambiyada qaybo ka mida ilaahay uu nicmo siiyey in la qaabilsiiyey shukri joogto ah oo ku beegan maalintii waxaad arkaysaa caashuuro soomkeeda maalintaa nebigu yidhi 1 sano baa dembigeedii lagu dhaafaya 1 sano waa 1 maalin oo soom sunno ah soom muxuu soomkeedu ku soo bilowday waa maalintii caashuuro nebi muuse ilaahay uu koriyay asagii qoomkiisa reer banu israa'iil fircoon iyo daalimkiina la halaagay iyo dadkii duqaada nimca sanad kasta maalintii ku beegan nebiguna muxuu yidhi naxnu awlaa minkum bimuusa maalintiibu ku beegan sidoo kale midaan usbuuc kasta socota oo nebigu markii la weydiiyey isniinta maxaad u soomaysaa yowmun wilidtu fiihi waa maalintii la dhalay sidoo kale waa maalinkii xaqa lagu soo usbuuc kastuu nebigu dhalashadiisa u dabaaldegay meesha annaku sanadkii aan maalin iyo 2 iyo 3 iyo 4 aan iskugu nim usbuuciibu maalin kasta oo isniina uu soomayay asagoo nicmadaas ilaahay koonka raxmadda u soo daahiriya uu qaabilsiinay hay ma markay yiraahdaan Soomaha dadkaas hadalkoodu noqon maayo marka Nabi Maxamed ba xaraam ku dhacay warta annaku Nabi Maxamed iyo shariicadiisii baan mutabic u nahay oo aan raacsanahay zaman horta wax ma u xarimay nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa oo Imaam al-Bukhari ay ma badan wariyeen لا تصبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه تتاوحا كوريسا آيات القرآن كاي horta bal marka hore aan kelmad iska nidaan aayada quraanka hadda aan ku furfurano waa kii ilaahay quraankiisa uu ku yiri muhammadur rasuulullaahi walladina ma'ahu ashidaa'u 'ala al-kuffar ruhamaa'u bayn dadka gaalada waa ku adag yihiin waa dadkii raayatul islaamka soo koriyay waa dadkii islaamka maanta halkan soo gaarsiiyay wixii asxaabtii un ka dambeeyay hoos buu islaamku u socday ogaad ruhamaa'u baynahum waa dad isku naxariisanay oo isjecel oo isxariirinaya تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله والرضوان waxaa arkaysaa bal yakor rukuucsan oo sujuudsan maxay dalbayaan fadli iyo ridaha ilaahay bay dalbayaan waxay aymadu yiraahdaan waxa lagu sifeeyay asxaabtii nabiga bi kathratil amal wal ikhlas labadaas ilaahay ku sifeeyay inay amal badan la iimaanayeen inay waliba ikhlas ay kula iimaanayeen waa tasgiyo ilaahay u tasgiyay وأنك حال سوق هذا حافظ ويناي وحافظ المغرب ابن عبد البر ويري وأنا لك كافي بينا وحكى بحث النبي وإجماع قف إسلام كأئمة أهل السنة والجماعة قديما وحديثا قف يراهده عدول معهن أصحاب النبي الله ما هي أما قف كمل من لابس الفتن ومن لا قف كفنوين كيسو غاري أو أرمها صلى كلمي iyo qoladii aan dhex gelin oo horteed ama dhimatay ama ka fogaatay kulligood
misna waa la sii wada ilaahay muxuu yidhi daalika mathaluhum fi tawraat sidaa hadda qur'aanku uu ku tilmaamay towreedna saasaa asxaabta nebiga lagu tilmaamay ilaahi اغفر لقارئ بنظم وسامعها ومن أصغى إليها وناظمها وكل المسلمين بقرآن وأسماء محمد رسول الله يا خير البرايا رسول الله يا خير البرايا عليك صلاة ربك يا ومن عظم بمولده الكريم بإنفاق وصلعمة محمد يكون يوم القيامة مع الرسول كذاك راو من محمد صلاة الله رسول الله يا عليك صلاة مع سلام الله تترى على المختار مولانا محمد وآل ثم أصحاب كرام وأشياخ ومن حب محمد يا خير البرايا رسول الله يا خير البرايا عليك صلاة ربك متى ما قال مادحك سعيد فقير مرتجي عفو الرحمن رسول الله يا خير البرايا عليك صلاة ربك يا محمد رسول الله يا خير البرايا رسول الله يا خير البرايا عليك صلاة ربك يا محمد عليك صلاة ربك يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي يا إمام يا نبي يا سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام غير منعكس يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم غير منعكس يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم غير منعكس يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام